بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan halkaan ka jeedinayaa baaq nabadeed ninbaa waxa laga sheegay lababa waa is saarayo laba tagogood isma saarin maanta caasimadii Puntland ee Garowe inay maanta saas dagaal inta leeg oo ka socdo aad iyo aad baan uga xunnahay haddaan nahay ummadda reer Puntland gaar ahaan ummadda reer Garowe waanu cambaaraynaynaa waana ka xunnahay wixii meesha ka dhacay waxaan halkaan baaq uga dirayaa madaxweynaha Puntland madaxweyne waxa la yiri madax meel ka sareyso oo la salaaxa ma jirto wadankan adaa madaxweyne waa adaa lagu dhaariyay adaa mandate u haysta niman mucaarada oo muxuu ahaay aan mandate u haysan inaad maaragtay yani magaalada dhexdeeda kula dagaasho oo magaalada dhibaato intaas leeg ay ka dhacdo caasimadda ahayd oo waliba laba caasimadood oo is saaran oo caasimadii gobolka Sool Laascaano iyo Garowe is saaran ay maanta halkaas muxuu ahaayay dagaalkaas ka dhaco oo dhibaatadaas ka dhacdo aad iyo aad baan uga xunnahay madaxweyne dagaalka adaa jooji kara dagaalka jooji xalka nabadda adiga haya xalka nabadda ku soo dhawow nimanka mucaaradka oo siyaasadda isku haysaana wada hadla isu imaada gacan u fidi haddaanu nahay odayaashii reer Puntland gaar ahaan reer Garowe waxaanu codsanaynaa nabad in arrinta lagu soo dabaalo oo arrintaas gacanta lagu qabto oo madaxweyne adiga ayaa awoodi kara bahashaas inaad nabaddaas muxuu ahaayay aad gacanta ku dhigto inaad gacanta ku dhigto baanu ka codsanaynaa madaxweyne waxaan maqlaynaa dastuur baa la isku hayaa dastuur baa waa la furayaa iyo la furmayo la isku hayaa hadda koor xilligii Cabdiweli sidaas oo kale ayaa buuq uga dhashay dastuurkaas in la furo dabadeed markii buuqi batay waa la joojiyay waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne inaad joojiso sidii Cabdiweli u joojiyo kale in adiguna joojiso oo go'aan raganimo leh oo geesinimo leh oo hogaamin leh inaad qaadato oo aad naga joojiso dastuurkaas baanu ka codsanaynaa haddaanu nahay ummadii reer Puntland waxgaradkii inta maaragtay nabadda jecel saaxiibul aqliga haddaanu nahay waanu kaaga habsanay dastuurkaas naga jooji nabaddana ha lagu soo dhawaado nabadda ha la qaato madaxweyne waa adiga saasaan ku leeyahay